taliyayaasha ciidanka taliya gowrac iyo saraakiisha booliiska waxaan kaloo salaamayaa booliiska halkan ku tababaranaya hortayada ka muuqda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaanu saaka ku faraxsannahay aniga suldaanku inaanu ka soo qayb galno tababarka halkan ka socday xafladdii loogu furayey tababarka booliiska ee gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood. waxaanu aad ugu faraxsannahay in dhammaan hay-adihii dowladdu gaar ahaan kuwii amnigu iyo dowladihii hoose ay shaqaynayaan. waxaanu aad ugu faraxsannahay dhibaatadii gobolka ka jiri jirtay ee dilka iyo dhibta iyo xadhigga iyo ammaan darrada inayan hadda jirin intii ciidanka Hargeysa laga saaray. dufcaddan waa dufcaddii ugu horreysay ee hadda tababarka uu furmay. kuwo kaloo badan oo ka dambeeyana waa jiraan. intaa waxaa weeliya sida meeyarku inoo sheegay iyo taliyuhu inay dhammaan saldhiggii iyo qaybtii iyo xarumihii dowladda oo dhan booliisku uu gacanta ku hayo, oo intana ay tahay qayb ka mid ah oo qaybtii koowaada. haddaanu nahay simada iyo guddida 330 waxaanu ku dadaalaynaa booliiska iyo hay-adaha dowladda oo dhanba gaar ahaan kuwa amnigu inay helaan xuquuqdii ay lahaayeen. insha allah waan helayaa. waxaanu u sheegaynaa maamulka Hargeysa inaannu isku filannahay, inaannu ka go'onay, inaanan ku soo noqon doonin, inay naga samraan, inay hawlahooda qabsadaan oo kuwa iyaga noo daayaan ayaannu ka codsanaynaa. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa meeyarka iyo taliyaha ciidanka oo juhdi badan iyo saraakiisha kale oo juhdi badan ku bixiyey sidii ciidan tayaysan oo aan balwo lahayn looga soo xuli lahaa deegaanka. waana ka maanta halkan tababarkiisu ka furmayo. qaybtii kalena insha allahu waa bilaabmi doontaa. waxaa iyana shaqaynaya ciddii hore booliis ahayd ee deegaanka u dhalatay oo markii hore wax yarba ahayd, iyana khibraddoodii iyo shaqadii booliisnimo ay dheer yihiin qolyahan ayaa iyana ka faa'iideynayaan haddii alla yidhaahdo. waxaan ciidanka u sheegayaa magaaladu waa ammaan saad ka war haysaan. dadweynaha reer Sool gaar ahaan degmada Laascaanood waxaan ka codsanaya inay booliiska la shaqeeyaan. haddaan booliiska lala shaqayn, booliisku waxba ma qaban karo. booliiska lala shaqeeyo aan bilicda magaalada iyo amnigeeda iyo jiritaanka maamulkeenna khaatuma SSC iyo sharafteenni inaynu la soo noqonnay iyo taladeennii aan muujinno. wabilaahi tawfiiq.